Bismillahi Rahmaani Rahiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelka Engineer Maxamed Ibraahim Cumar. Channelku waa channel cusub. Haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawato channelkani, fadlan subscribe, share, like intaba dhag noogu sii adigoo mahadsan. Intaasi waa codsi. Aan u gudagala cashirka. Waxaa noo soo dhammaaday tenniska koowaad ee ah present continuous tense. Waan ka soo hadalnay qeexitaankiisa, qaabka u shaqeeyo, qaacidada uu ku shaqeeyo, example-na waan ka soo bixinay, waan soo fahnay. Waxaan maanta ka hadli doonaa ama u gudbeynaa tenniska labaad ee ah simple present tense. Aan maanta ka hadli doonaa sidoo u shaqeeyo, qaabkiisa, qaacidadiisa iyo example-diisa dhammaan intuba maanta ka wada shaqeyn doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Horta tenniska muxuu yahay? Intaan qeexitaankiisa gelin, waxaan rabaa in qaab af Soomaali ah inaan ugu fahansiiyo tenniska labaad muxuu yahay, muxuu ka hadlaa, sidoo u shaqeeyaa. Waxaan rabaa inaan ka hadlo. Horta marka tenniska labaad la joogo, tenniska labaad iyo tenniska koowaad waxaa adag tenniska labaad. Isagana ma adkee, balse wuxuu u adag yahay ardayda micnaha weli oo bilaawa ama beginner ah ayuu u adag yahay. Ardayda oo bilaawa ah tenniska cusub ayuu u adag yahay. Tenniskan wax kale ma adkee, wuxuu ka adag yahay verb-ka is raacsiinaa bis oo ka adag yahay. Ardayda badanaa waxay ku wareeraan staas lagu wareeraa bis. Maana tenniskan ma adko, balse markii loo bardhigo tenniska koowaad wuu ka adag yahay, kana adag. Marka labada markii la bardhigo, tenniskan labaad adag. Tenniskan labaad horta haddaad mar fahantid ma ku wareeraysid. Fahmitaanka aad fahmaysid wuxuu yahay staas inaad fahantid bis. Goorme s raacdaa, goorme s aan raacin bis. Haddaad fahantid tenniskan ma ku wareeraysid. Tenniskan horta sidiisa bana wuxuu ka hadlaa fal maalin kasta dhaco ka hadlaa tenniskan. Fal maalin kasta dhaco oo ka hadlaa. Waana tenniska labaad. Wuxuu ka hadlaa fal maalin kasta dhacdo ama dhacdo maalin kasta dhacdo ka hadlaa. Tusaale aan soo qaato wuxuu yahay, waxaan dhahay aniga waxaan aadaa iskuulka. Fiiriya, aniga waxaan aadaa iskuulka. Goormaan aadaa iskuulka? Maalin kastaan aadaa. Mar kasta iskuulkaan aadaa. Aniga waxaan aadaa iskuulka maalin kasta. Tusaale labaad, waxaan dhahay aabaheyga wuu raacaa gaariga. Fiiriya, aabaheyga wuu raacaa gaariga. Aabaheyga goorma raacaa? Mar kastoo raacaa soo maa gaariga. Tusaale saddexaad, macalinka wuuna fahansiiyaa cashirka. Fiiri, macalinka wuuna fahansiiyaa cashirka. Goorma na fahansiiyaa? Maalin kastoo na fahansiiyaa. Marka tenniskan wuxuu ka hadlaa dhacdo maalin kasta dhacdo ka hadlaa. Tenniska maxaa dhihini? Wuxuu ka hadlaa fal hadda dhacayo faraha lagu hayo soo maa. Balse tenniskan wuxuu ka hadlaa fal ama dhacdo maalin kasta dhacdo ka hadlaa. Waa fahanaa filaad af Soomaaliska tenniskan inuu yahay tennis fal oo ka hadla fal mar kasta ama dhacdo mar kasta dhacda. Muxuu yahay marka? Aan u gudgalo marka sharxaad. Waxaan leeyahay what is a simple present tense? Muxuu yahay ama maxaa waaye simple present tense? Simple fudud, present xaadir, tense dhaca. Isiisid waxaa loo isticmaalaa to express in lagu qeexo, in lagu muujiyo an action ficil which ficilkaasoo happiness dhaca every day maalin kasta. Macnaha simple fudud, present xaadir, tense dhaca. Isiisid waxaa loo isticmaalaa to express in lagu qeexo, in lagu muujiyo an action ficil which ficilkaasoo happiness dhaca every day maalin kasta. Tenniskan waxaa loo isticmaalaa ama lagu muujiyaa inuu yahay fal maalin kasta dhaca. Lagu muujiyaa ona dhahay. What is the formula of a simple present tense? Ama qaacidada ama formulaha oo ku shaqeeyo tenniska labaad ee ah simple present tense muxuu yahay? Tenniskan labaad qaacidadiisu wuxuu ku shaqeeyaa ficil sameeye lagu daray ficilkii
lagu daray ficil gudoomiyihii. qaacidada oo tenniska labaad oo ku shaqeeyo saddexdaas qaacido waa ficil sameeyihii, ficilkii, ficil gudoomiyihii oo ah subject plus verb plus object. balse tenniska markii la joogo waxaa jiro s, sida aa uga jeedid example sida aa uga jeedid waxaa jiro s aa jirto. s-tana waxay raacdaa verbka, s-tana waxay raacdaa verbka ay raacdaa, s-ta waxay raacdaa verbka ay raacdaa. haddii subject yimaado verb s-aa raaco, laakiin s-aa raaco kaligeed maana shuruudaa jirto. marka xilli oo raaco iyo xilli oo aan uusan raacinaa jirto, waan arki doonaa isana. balse qaacidada ama formula oo ku shaqeeyo tenniska labaad ee simple present tennis midaan waa subject plus verb plus object. marka auxiliary tenniska koowaad waxaa su'aal ah, tenniska koowaad wuxuu ku shaqeeyaa la auxiliary waxa u ah la am is arag la soma. tenniskana oo simple present tennis waxa auxiliary ah do i does, waxa auxiliary ah do i does. do-na yee raacdaa, does-na yee raacdaa. do waxay raacdaa wixii jamac ah la socyaa, do waxay raacdaa wixii jamac ama plural ah, do iskale. does-na waxay raacdaa wixii singular ah ee raacdaa, does maxay raacdaa wixii singular ah. for example she, he, it, father, mother, teacher, policeman, president, prime minister. waxaas dhan oo singular ama noun ah ama pronoun ahaado oo singular ah waxa auxiliary ah markii tenniska labaad la joogo does ah. wixii plural-na they, we, I, fathers, mothers, teachers, presidents. waxaas dhan maxaa oo naan ah plural ama pronoun ahaado oo plural ah ama jamac ah do way ku shaqeeyaan tenniska labaad markaa la joogo. okay aan usoo noqdo marka verbka. ila verbka waxaan odhanahay s-aa raac soo maa, s oo ku shaqeeyaa. tenniska koowaad verbka maxaa raacay ing, tenniskan labaadna verbka waxaa raaco s. balse laakiin tenniska koowaad wuxuu ahaa mar kasta ing waa daba soconaya kama hareynin. balse tenniska labaad markaa la joogo verbka s-ka raacayo shuruudaa lagu xiray, marna wuu raacaa marna ma raaco. goormee waa marka uu raaco, goormee waa marka uusan raacina. aragno tenniska labaad markii la joogo verbka s raacayo wuxuu s verbka raacaa markuu jumladu ay tahay statement. hadal caadi markay tahay verbka waxaa raaca s. balse haddii jumladu tahay su'aal ma raaci karto s, ma raaci karto sabab ila daas aa su'aal ah, s iyo daasna hal meel misla gali karaan, s iyo daasna hal meel misla gali karaan. waa ina meesha daas joogtaa s ay ka maqan tahay, ama waa ina meesha joogtaa s ay daas ka maqan tahay. maxaa ku dhaca s waxay raacdaa marka s ay raacayso waxay tahay markii jumladu ama sentence-ku uu yahay statement ama affirmative markuu yahay oo ama hadal caadi uu yahay verbka waxaa raaca s. haddii jumladu ay tahay su'aal ama diidmo ama kuwa su'aali diidmo isla jiro ma raacayso wax s ah. balse haddii jumladu ama sentence uu yahay jumla iska caadi ama hadal iska caadi uu yahay s aa raacay verb. okay waxaan ku arki doonaa tusaalaan ku arki doonaa. example waxaan odhanahay example 1 I speak English fluently. aniga speak waxaan ku hadlaa Englishan ku hadlaa fluently si fasiix aan ku hadlaa. ana la fiiriya aniga speak waxaan ku hadlaa English baan ku hadlaa battery fluently si fasiix ah oo la fahmi karo aan ku hadlaa battery. goorma English ku hadlaa everyday aan ku hadlaa, maalin kasta ku hadlaa. ma dhahooy English ku hadlaa ma dhahooy oo maxaa dhahooy waxaan ku hadlaa English si fasiix ah. goorma ku hadlaa markaas everyday aan ku hadlaa. okay hadda muxuu yahay affirmative ama hadal iska caadi waa. su'aalo verbka tenniska labaad markaa la joogo verbka waxaa raaca s alla soma. jumladani verbka speak waaye maxay s u raaci wayse waa lagu weydii karaa sabab s u raaci wayse waxay tahay ilaa waxa hor usoo fahantay ama lagu soo tusay in lagu dhahay wixii oo plural ah ama jamac ah verbkooda ma raacayo wax s ah. maxaa ku dhahay wixii jumla ama plural ah verbkooda ma raacayo wax s ah, laakiin wixii singular ah verbkooda uu raacaa s. laakiin goorma raaca marka uu yahay
statement singular naftarkiisa laba shuruud loo kala qaaday waxaa lahay s uu raaca goormee waa markuu singular yahay goormuu raacayn markuu su'aal ee tahay ma raacayo verb s ma raacayo laakiin kuwa plural-ka ama jamaca ah gebigoodba ma raacayo kulligood ma raacayo su'aal ahaado ama hadal caadi ahaado wax s ah ma raacayo verbka laakiin kuwa singular-ka ah s wuu raaca goormee markay jumladdu ay tahay affirmative ama hadal iska caadi markay tahay verbka s aa raaco laakiin markay su'aal iyo diidmo iyo questions negative markay tahay ama su'aal diidmo isla jira markay tahay verbkooda ma raacayo wax s ah ha tusaale macno leh I speak English fluently verbka yaa waay speak waa s ma og jeeda waa maya sabab ilaa subject fi subject maxaa waay I waa I maxay tahay plural marka ilaa waxaa la I mar singular marna bor dadka say dhahaan laakiin plural loo qaataa ama ku shaqeyso Soomaa waxaa la marka jamci ka mid tahay verbka s ma la raacsiyo oo maxaa la mar I speak English fluently I yata waa subject speak yaa waa verbki English yaa waa object fluently maxaa tahay waa adjective waa sifo waa si fasiix ah la Soomaa okay su'aal ka dhig ilaa maxaa ku dhahay wixii jamca wuxuu ku shaqeeyaa do wixii singular ah does I am zero maxay noqonaysaa do maxaa do I speak English fluently miyaan aniga ku hadlaa English si fasiix ah did maga dhig I did not speak English fluently aniga kuma hadli English si fasiix ah su'aal did iswada ka dhig don't I speak English fluently so miyaanan aniga ku hadlaynin English si fasiix ah okay fahana malaha example waad aan soo qaadan example waad wuxuu leeyahay she cleans the house every day she ayadu cleans waxay nadiifisaa battery the house guriga every day maalin kasta hadda marka verb maxaa la raacsiiyay clean oo ah s la raacsiiyay sababta s loo raacsiiyay maxaa waaye subject verb subject meesha yaal muxuu yahay waa singular maxaa la siiyay marka verb s la raacsiiyay maxayna tahay jumladu waa jumlo iska caadi ama hadal iska caadi ama affirmative ama statement waa aniga waxaan ogeyn waxaan lahay kuwa singular-ka ah s la raacsiiyaa goormee waa markii jumladu ay tahay hadal iska caadi ama affirmative ama statement markay tahay ah verb waxa la raacsiiyaa s balse markay su'aal iyo diidmo iyo su'aal diidmo isla jira markay tahay wax s la raacsiiyaa Allah Soomaa had jumladu meesha noo taal maxay tahay waa mid statement ama affirmative ama hadal iska caadi ah waa soo daad markaas waxa la siiyay verb waxa la raacsiiyay s oo maxaa la she ayadu cleans waxay nadiifisaa the house guriga every day maalin kasta had maxay aad affirmative su'aal ka dhig maxaa la marka does she clean firi ist aaw waa baxday ilaa meesh maxaa timi su'aal imaad oo ah daas imaad maxaan ku dhahay daas is hal meel misla gali karaan waa ina meesh daas ay joogtaa is ay ka maqan tahay ama waa ina meesh is joogtaa daas ay ka maqan tahay maxaa la marka does she clean the house every day miyay ayadu nadiifisaa guriga maalin kasta okay wuxuu marka diidma ka dhig maxaa la marka she does not clean the house every day ayadu ma nadiifiso guriga maalin kasta maxaa la she does not clean the house every day verb maxay loo siiyo wali daas aan socoto hadee ba daas jumlada ku jirto verb kale ma la raacsiin karo wax s ah su'aal diidmo soo jirto ka dhig doesn't she clean the house every day so miyaanan iyadu nadiifin guriga maalin kasta she doesn't clean the house every day next marka example saddexaad waxaan leeyahay he translates he asagu translates wuxuu turjumaa the language of English luqadda English ayuu turjumaa verb maxaa raacsan translate oo asal raacsan sabab loo raacsi maxaa subject fi maxaa waa singular jumladu maxay tahay hadal iska caadi statement ama affirmative waa so that saasa marka waxa loo siiyay verb asal raacsiye oo maxaa la marka he translates the language of English su'aal ka dhig does he translate the language of English verbku ma laha wax tan oo is ah so that does ameesha ku jirto waana su'aal diidma ka dhig he does not translate the language of English questions negative ka dhig doesn't he translate the language of English next example ka afraad my father aabahayga drives wuxuu kaxeeyaa the car gaariga every morning subax kasta aabahayga wuxuu kaxeeyaa gaariga
subject meeshan yaal muxuu yahay waa noun oo singular so that verb maxaa la sii azal raacsiin okay su'aalka dhig marka does my father drive the car every morning sababta my father does loo sii maxay tahay ilaa my father waa singular wixii singular waxaa lagu waa in la siiyo does ahaada ama pronoun ama ahaada noun okay saas la soco marka okay diid marka maxaa dhahaa my father does not drive the car every morning aabahey ma kaxeeyo gaariga maalin kasta su'aal diid oo isla jirta karig maxaa doesn't my father drive the car every morning so miyuusan aabahey kaxeynin gaariga subax kasta waxaan filayaa inaan fahanay cashirkeena halkaasi ayuu ku eg yahay fadlan janaalku waa janaal cusub haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawo janalkani fadlan subscribe share like intuba dhag noogu sii adigoo maasan